بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه سلام دمانتي إن شاء الله تعالى. ولكن إمام يحيى يوسف عمر وما أنت يولان مقالة الجوجا مقالة إلى تامبا فلوريدا كتار. والحمد لله إله جل وعلا إلى كل نسيي. ولكن عثمان سعيد عثمان وقراءة أيان إن شاء الله تعالى يبغى يصنع بإذن الله تعالى. ولكن هرتا سعيدو سكورنا adiga waxbarashadaada iyo xaggaad ku weynaatay iyo meeshaad joogtid iyo alxamdulillah aad baa u mahadsantahay imaam yaxya waxaan ku dhashay horta gobolka gado xaggaas aan ku bilaabay aqoontayda diineed gaar ahaan xagga dugsiga culimo badan wax waa ka soo bartay oo uu kamid yahay sheekh ilaahan sheekh ibraahim oo kutub diini oo fiqi ah iyo axaadiis iyo fanni kalaba ii akhriyay haddana waxaan ku suganahay gobolka Kentucky xaggaas oo dadaalka diinta iyo khayrka aan ka wado marka noloshayda waa sidaas ardayna waan ahay wali aqoonta islaamka inuu sii wado oo sii ziyaasadana rajaynaa insha Allah ta'ala ma sha Allah saciido ilaahay khayr ku siiyo waxaan arkay kuwa maxaan ku raadayay laba kitaabad qortay labada kitaab uu mid yahay kitaabkaasi ma sha Allah the only one ما شاء الله سعيد إلهي كبركيو waxaan ku oran lahaa labadan maahe wax kale qorto ma jiraan waqti xaadirkan hadda la joogo labadaas kitaab baan qoray laakiin kuwa kalena waan ku guda jiraa inaan qoray insha Allah ta'ala oo hadda gacanta ku haayo markii aan dhameeyay insha Allah ta'ala bulshaweynta oo muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida waa la wadaagi doonaa insha Allah ta'ala si looga faa'iideysto kutubtaas marka horta kutubtaada ma wada ingiriis un baa aad qortay mise qaar Soomaaliyeed ku qortaa jira nimankadan xaaliyan waxa jooga hadda labada aan qoray waa ingiriis laakiin haddii aan helo qof luqadda Soomaaliga garanaya insha Allah ta'ala oo buugta tafatiro waxaan rajaynaynaa ayagana kuwa Soomaali aan qoro si ummadana Soomaaliyeed aan ola hadlo insha Allah ta'ala ma sha Allah waxa ku weydiin lahaa walaal Saciid Allah ku barakeeyo imise ka qaadatay qoristiisii iyo maxaan ku raadayay diyaaradiisii oo kadib markaad qortay kadib dadka kala tashatay iyo khiyaartaad kala tashatay ee kala hay alxamdulillah horta kitaabkan koobaad waxaa la yiraahdaa the only one qoristiisa waxay qaadatay muddo 6 bilood ah in la soo ururiyo xogtiisii iyo tixraaci buuga lagu dari lahaa waxaana la wadaagay culimo gobolka aan deganahay jooga iyo sheekh hadda ay dhahaan imaam Talha oo u guuray xagga ما شاء الله بارك الله فيك ان الحمد لله aniga Allah subhanahu wa ta'ala maantii ugu horeysay iskaarto labada buug in muddo aan yarjiitamayo warniyo waqtiga u baahan yahay waxaad igu waanisay horta maxaad igu waanisay baad ugu tiraahdo ii soo daay horta qofka markuu rabo inuu kitaab qoro ama ummad uu la hadlo inuu degdega lama rabo sababtoo ah degdega faraha badan iyo hal mar wax dhameey qofku waxay ku keeni kartaa caajis inuu shaqada uu qaban waayo marka qofku waxa fiican inuu maalinkii in yar qoro kadib uu fikiro sababtoo ah taas waxay ka caawin kartaa inuu la yimaado fikrado kale oo cusub ama hadaladii uu qoray uu u raaday meel kale oo kaga sii haboon ما شاء الله بارك الله فيك الحمد لله ديغو دلنيرتا maxaan ku leeyahay maxaad in sha Allah ta'ala ku waanin lahayd dadka anigoo kala ah oo raba inuu wax qoro biin Allah ta'ala iyo dhallinyarta soo kacaysa inay waxbarashada maxaan ku leeyahay ku dadaalaan iyo maxaad ku waanin lahayd in sha Allah horta waxaan dadka raba inay wax qoraan aan kula talinayo in sha Allah ta'ala inaynan ka caajisin wax qorista ugu yaraan maalinkii ay wax qoraan aqoontana waa iftiin waaye iftiinkaas waxa loo baahan yahay qofkii inuu gacanta midig ku qabsado marka aqoonta ha lagu dadaalo wax badan baa loo baahan yahay in la barto insha Allah ta'ala بارك الله فيك ولالك سعيد الله كبركه إن شاء الله تعالى وحن الله جل وعلا أن الله كبرين وإله سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كاغا وإله سبحانه وتعالى وقليو كتب تاس
مصوت هدي لهاي هذا كتبك لينا إن سعودي على سد إن شاء الله كسابسن taas waan rajaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaa inaan qoro kutabo maaragta ka hadlaayo isbarbardhigga diimaha sida islaamka oo kale masiixiyadda oo kale iyo diimaha kale maaragta cadda caalamka looga dhaqmo si ma aragtay ummadaas uu allah subxaanahu wa tacaala uu abuuray uu u gaaro tawxiidka iyo maaragtay ku xirnaansha allah subxaanahu wa tacaala marka dadaalka ma yaro ducadiinana maaragta waa noo muhiim insha allahu tacaala nugu soo kaalmay ilaa duna insha allahu tacaala جزاك الله خير آدي آد بعض ما تنتهي ولكن الله كبركيو الآن كسو قال إن شاء الله تعالى إيه على ما كان إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق إلهي دنبقين دنبق والدين الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك